بسم الله الرحمن الرحيم. مالين وناكسن آد بان إذن سلام يا دمانتين ميل أتشوكتان عشر كان أو أينو كحولين إنه عشر كي أينو هذا كور كوض هذا الله كحول السنة عذر هذا علوشة يو عذر كان لا ياخذ جاستريجا وكوس جريو بكتيريا ذا علوشة كشة أما تشيرمس كعلوشة جرا اللي يقانو H بايلوري ما شاء الله aad iyo aad baad u mahadsantihiin mar labaad iyo saddexaadba waxaan doonayaa marka inaan uga gudbo arrin kale oo la xiriidha iyana H pyloriga la soo xiriidha waayo caloosha marka ay ku dhaco bacteriadaasi ay ku dhacdo ee gastriga qofka ku dhaco kow cudurka ugu xun ee uu marka qofka uu ka dacwooda waxa weeye calool adayga maanta waxaanu ka hadlaynaa calool adayga sida loo daweeyo iyo waxyaabaha lagu daweeyo iyo waxyaabaha lagu cilaajo sida aad magaranaysa aad uga badbaadi calool adayga iyo waxyaabaha uu sababo waayo caloosha marka uu ku dhaco bacteriadu ay ku dhacdo isla markiiba waxa ku dhaca calool adayguna halkaas oo ah mindhicirka waxa loo yaqaano iyo kaasoo qabsinka ah waxaan saxaradu way adkaataa qofka dhibaata way yeeshaa waxaa ka mid ah dhibaatooyinka uu keeno calool adaygu gaasiska wax loo yaqaano ama colonka dabcan colonku qabsinku waa qabsin kaca iyo qabsin dadban iyo qabsin dega qabsinka degana waa qabsinka saxarada dabadda u saara marka calooshu markay adkaato waxay ku la darsataa bacteriada halka ku jirta aynu hadda ka hadalay H pylori yiraahdo la darstaa marka calooshu halkaas saxaradu mar haday ku raagto xilligii la rabay inay baxdo ma baxayso dhacaanka qabsinku iyo mindhicirku dhacaanka dib uga nuugaya uu adkaanaya waxay keenaysaa wax la yiraahdo another gastric kale oo dhaca qabsinka ayay keenaysaa waxay keenaysaa waxa loo yaqaano bawasiirta oo aynu xalqada tan ku xigta insha Allah aynu ka hadlayno cilaajkeeda iyo asbaabta keenta iyo wax lagu daweeyo iyo dhirta Soomaaliya ka baxda ee lagu daweeyo bawasiirta maanta waxaanu ka hadlaynaa waxa caloosha lagu jilciyo okay calooshu horta wax kasta geed kasta oo aad ka heshaan dadkan cadaarinta loo yaqaano waxaa ka mid ah geedka ay u yaqaaneen carabtu sanamaki waa waraaqo ama caleemo geed caleemihii weeye waa la kariyaa facilitieskiisa uu ku shaqeeyo ama nidaamka uu ku shaqeeyo ee uu caloosha u jilciyana waxa weeye geedku caleentiisa waxay leedahay xuub sare oo sida quraarada oo kala ah marka la kariyo way dhalaashaa qaraarada kuleelka dhalaaliya biyuhu raaca marka qofku cabona calooshu way diidaa waayo uu mudaa marka calooshu waxay direen galaysaa oo dabada u tuurtaa wax allaale wixii saxara ah ee jooga mindhicirka ku jira ama qabsinka ku jira calooshu markaas way saasi ku socotaa aan ahayn waxa kala dhir kala jirta oo sida loo yaqaano geedkan jilciya caloosha ee loo yaqaano rawand masar ku badan waliba iyagu biyahan soodada loo yaqaano ay ku daraan oo sooda rawand sooda baa leeyahay way cabaan laakiin wuxuu isaguna cidladu leeyahay rawand wuxuu sameeyaa low pressure macnaha uu dejiyaa daqad ku dejiyaa caloosha saasi ku socota marka dadka cudurrada wadnaha leh uma fiicna inay isticmaalaan sanamakiga laftigiisu waa saan idin sheegay waa nooc min quraarad weeye marka haddii lagu celceliyo mar walba aad caloosha ku istaagto aad sanamaki aad cuntada sanamaki wuxuu sameeyaa isaga laftigiisu nabaruu sameeyaa gastric wuxuu sameeyaa nabaradan caloosha ku dhaca ayuu ku caloosha ku sameeyaa uu saraa marka iyaduna inaad mar samaysid laba samaysid okay weeye laakiin inaad every time caloosha ku taagan tahay aad sanamaki cabtid ma fiicna sanamaki qasadiisu waa qasad dheer weeye geedka sanamakiga la yiraahdo horta sanamaki taariikhiyan
waxaan horta sanamakiga geed baa la odhan jiray berigii dee carabtii hore ay waxa geed ka bixi jiray, geedka sana baa la yidhahdaa. markaa sanaha ka baxa maka ayay dadku magaranaysaa ay ammaani jireen. markaa dadku hadday jeraa waxay odhan jireen sana makiga, sanaha makiga ah ee maka ka baxa isiiya. markaa sana maki iyo sana farisi iyo sana hindi iyo sana shami iyo sana masri ayay ahaayeen. magacii waxaa isku fuuqsaday hadda geedkii oo la wada yidhaahdo sana maki, ama faris ha laga keeno, ama hindi ha laga keeno, ama maka ha laga keeno, ama sham ha laga keeno, waxa la isku wada yidhaahdaa sana maki. geedkaa weeye sana makigu. marka caloosha marka aad sana makiga cabtid saan idiin sheegay calooshu way socotaa. laakiin qofka Soomaaliya jooga for example, ama Burco ama Hargeysa ama Hargeysa jooga, ama whatever Soomaaliya Muqdisho jooga, ama Kismaayo jooga, ama Beledweyne jooga, ama anywhere jooga, ama Puntland jooga, ama wherever, muxuu samaynayaa? sana makina laga yaaba inaan ahayn. okay, dhirta caloosha socodsiisa ee Soomaaliya ka baxda in general waxaa ka mid ah geedka loo yaqaano berdaha iyo darayga. geedka berdaha iyo darayga loo yaqaano haddii qofku uu cuno 2 litro biyo ana maalintii cabo, uu geedkaana cuno 5 cisho, calooshiisu way socotaa, bakteeriyadaasna waa dilaya, waa ka dawo. waxaa kale oo jirta sarreenka marka la beero, marka uu baabaca uu naqa yahay, baabacada in la eego dhulka ka kaco, haddii la gooyo oo dib magaranaysaa loo shiido, sida magaranaysaa casiirka ama juuska oo kale loo shiido oo la cabo, wax ka fiican uu ka fiican yahay 100% dhirtan xabag xaarta oo kale loo yaqaano ee caloosha socodsiisa uu ka fiican yahay. marka sarreenka marka la shiido caleenta naqa sarreenka ama qamandida markay soo baxdo, intaanay baabacada aanay dhulka ka kicin, yaani cuudkeedu aanu adkaanin, haddii la jaro naqa oo la ridqo, casiir ahaan loo ridqo, loo shiido oo la cabo, waa caloosha way socodsiisaa, waana very good vitamin bay leedahay iyo waxyaabo faa'iido u ah. jeermiska calooshana way dishaa, way ka saartaa qofka gaasiska. inkasta oo caanaha culayga leh, dadka caanaha culayga leh caba ay dadkan dibira gaasiska leh ay u fiican yihiin, ama culayguba in general si guud ahaanba uu fiican yahay. marka waa taa calooshii waa taa, taasina waxa weeye xamiitida. waxaynu ka hadlaynaa saxarada halkaa timaada iyo qabsinka, halkaasi waa halka loo yaqaano appendix-ka ama subci zaa'idka loo yaqaano. qabsinkii waa ka kacay, kii dadbanaana waa ka, kii degayana waa ka, halkaan saxarada ka baxda. insha allahu tacaala ilaahay nagu anfaco wixii faa'iido leh. qabsinku waa ka aynu ka hadlaynaa, waana qabsinka sameeya hadhowto cudurka dib aynu ka hadli doono ee loo yaqaano bawasiirta. halkaasay saxaradu fadhiisanaysaa, ma baxayso, cudurro badan bay keenaysaa. aanu qofku magaranaysaa uu si sahlan uu uga badbaadi karo. insha allahu xalqada dambe taasi waxa weeye mindhaqirka, waa qaybta mindhaqirka weeye. ku jirtuna waa isku intaa weeye, waa ka beerkii, calooshii, qabsinkii iyo mindhaqaradii iyo intiiba waa kuwa weeye. caloosha ayaanteenu ka hadalay ee gastriga aynu ka hadlaynay maalintii dhaweytay, cudurka gastriga iyo jeermiska H. pylori loo yaqaano caloosha wata, xuubkeedii gudaha iyo halka uu galo H. pylorigu uu kasoo gudba, halkaasuu galaa si uu uga badbaado dheefshiidka caloosha, halkaasuu ku dhuuntaa, hadhowtana wuxuu sameeyaa cudurro adagoo kansarka uu ka mid yahay. marka calooshina waa taa weeye. insha allahu tacaala nabarku marka uu bilaabo, halkaasuu ka bilaaba. hadduu nabarkaasi qofka ku bilaabo, waa markaa loo cudurrada waxaan dheefshiidka yareeya la siiyo qofka. insha allahu tacaala xalqada soo socota waxaanu ka hadlaynaa dawada loo isticmaalo cudurka bawasiirta loo yaqaano. insha allahu tacaala. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.